xafladan sida heerka sare loo soo agaasimay oo ay soo abaabuleen kulanka dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Sudan ayaa lagu dabaaldegay maalinta saddexaad ee Ciidweynta Ciidul Adha iyadoo ay ka soo qayb galeen boqolaal arday iyo jaalis Soomaaliyeed isugu jira. xafladan oo sidoo kale ay sanad guuradii 20aad ee ka soo wareegatay kulanka dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Sudan ayaa waxa lagu soo bandhigay gabayo, heeso, shirab halka ay qoobkayaalkana u jiray. shirab ay soo alifeen ardayda Soomaaliyeed ee dalka Sudan wax ka barata ayaa waxa fariin loogu diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud. waxaan ilahay nimankan dakaatiirta professor ee nabadda waa nicmo ilaahay dalka ayaa dadka diinta waa inay ku duwan dawila 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 salaam ku darsaay dardaaranka waa iska baday saddex kale to deel ku tal abadar yeelin daayinka saddex kale to deel ku tal abadar yeelin daayinka saddex kale to deel ku tal saddex kale to sisibal niman dabiya din lahayn abadar yeelin daayinka niman dabiya din lahayn abadar yeelin daayinka niman dabiya din lahayn abadar yeelin daayinka niman dabiya din lahayn. xafladan oo ay goobjoog ka ahayd mas'uuliyiin fara badan oo isugu jira kuwa ka socda safaaradda Soomaalida ee dalka Sudan iyo aqoon-yahano taqaatiro badan ayaa halkaas khudbado ka jeediyay mas'uuliyiin uu ka mid yahay siyaasada safaaradda iyo Cabdiqaadir Geedi oo ka mid ahaa xildhibaanadii hore ee dawladda ku meel gaarka ahayd. Geedi oo ka mid ah xildhibaanadii hore ayaa sheegay in ay muhiim tahay midnimada Soomaaliyeed oo aan la kala maarmin. in la ogaado in midnimada kaliya aan ku noolaan karno haddaan Soomaaliga qofka ah oo afka Soomaaliga ku hadla hadduusan midnimo helin in aysan maaragtay waxa kale oo dhan in aysan shaqaynin markii anaga aan midnimo samayno ka bacdi ayaan u baahanahay warbasee wax nidaahnaa. Cabdiqaadir Xirsi oo ka mid ah mas'uuliyiinta kulanka dhalinyarada ee 20 sano ka soo wareegatay xilligii la aasaasay ayaa TV-ga qaranka ugu waramay xafladaasi markii ay soo dhamaatay wuxuuna yiri waxaan hambaliyo bogaadin u dirayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan adduunka guudkiisa anigoo ugu hambaliyeynaya maalintan ciidda ee barakaysan ee saddexaad oo ay ku soo beegantay maalintii 20 jirsaday ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Sudan multaqa shabaab Soomaali bi Sudan. waxaan hambaliyo bogaadin u dirayaa inta ku abtirsata multaqaha iyo ummadda Soomaaliyeed sida u dhan tahay hambaliyo labaad oo ku beegan sida ay u hanteen inay doortaan dawlad rasmi ah oo ka saarta maanta dalkeenii Soomaaliyeed dhibaatada ku habsatay taas oo loo doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya ahna nin hawlkara oo aan shaki ku jirin inuu noqon doono ninkii ka saar lahaa ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ay ku jirto waxa weeyaan walaalkay Professor Xasan Sheekh Maxamuud. xafladan lagu dabaaldegay maalinta ciidda saddexaad sidoo kale lagu xusayo 20 guuradii ka soo wareegatay aasaaskii loo sameeyay ururka lagu magacaabo Kulanka Dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Sudan ayaa waxay ku soo gabagabowday jawi aad u wanaagsan waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin heer sare oo ka mid tahay madaxda safaaradda Soomaalida ee dalka Sudan Fido Maxamuud TV qaranka Soomaaliya al Khartoum Sudan.